waxaan maanta halkan u joognaa inaan warbixin yaroo kooban idinka siino hawlaha la xiriira arrimaha doorashooyinka ee aanu gacanta ku haynay haddii aanu nahay guddiga kabaarandega arrimaha doorashooyinka ee lagu magacaabay kabacdi markii shirkii Dhuusamareeb 2 warmurtiyeedku ka soo baxay halkaas oo ku xusnayd in la aasaaso guddi arrimahan ka soo baarandegta kana soo tala bixisa shirkaas oo dhacay 22 bishii July inta ka bacdi guddigii baa la aasaasay shaqo hordhaca ayaanu soo qabanay oo arrimahan u igmaneen la xiriira doorashooyinka ka tala bixintoodii magaalada Muqdisho ayaanu ku kulannay guddiga haddaanu nahay qorshayaal iyo shaqooyin hordhaca baanu soo qabanay ka bacdi halkan ayaanu nimi bisha 15keedii labadii cisho ee aan halkan joognay shaqaanu ku jirnay maantana waxaanu u nimi madaxdii ku sugnayd magaalada Dhuusamareeb ee heer federaal iyo heer maamul goboleedyada ee na soo igmatay inaanu warbixin hawlaha iyagu halkee marayaan ka siino iyana ay noo warramaan marka kulan shaqo ayuu ahaa shaqadii ay ummadda Soomaaliyeed naga sugaysay haddii aan idin guud maro hawsha halka ay marayso markii la magacaabay ka bacdi sida aad ka warhaysaan warbaahintan aad ku aragteen waxaanu kulamo hordhaca horta qorshe hordhaca aanu ku shaqaysano baanu samaysanay waxaanu samaysanay mabaadii guud oo nahagta halkan ayay halkii shirka Dhuusamareeb uu ka dhacay doodii halkan ka dhacday iyo warmurtiyeedkii waad ka diragsan tihiin annaga arrinkayagu waxa inaanu keenno doorasho ka soo tala bixino doorasho hanaanka doorasho ugu haboon ee lagu gali karo waqtigana ilaalinaya sharciyadana ilaalinaya sida laajigeed markaanu fadhiisano qorshaanu samaysanay mabaadii dheelitiran oo ka turjumaysa afkaaraha kala duwan baanu samaysanay mabaadiida ka bacdi qorshayaal baanu samaysanay qorshayaasha waxa ka ratibmay hawlo aanu soo qabanay qaarkood qaarna noo dhiman yihiin hawlaha waxa ka mid ah inaanu la soo tashanay si hordhaca hoggaanka bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan iyo siyaasadeed sida xisbiyada intii aanu ka gaadhaynay ururada haweenka bulshada rayidka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo arrimahan in muddo ah ka soo shaqeynaysa ka soo baarandegaysa aanu soo warsanay kulamadaas waxaan kulamo wada tashi oo aanu dadka arrimahan danaynaya waxna ka og ka soo ururinayna afkaaraha kala duwan ee ka jira gayiga Soomaaliyeed markay noqoto xagga doorashooyinka inta ka bacdi anagoo mabaadiidu ay nahagayso talooyinkii hordhaca aanu helinay ay nahagayaan waxa kala xusid mudan in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay noogu yimaadeen goobtii aanu ka shaqeynay magaalada Muqdisho halkaas oo ay hoga tusaaleyn iyo talo iyo dhiirigelin intaba nagu siiyeen maantana waa mahad Ilaahay waxaynu joognaa magaalada Dhuusamareeb oo kulankii lagu ballamay ee hore lagu ballamay ee ahaa inuu bilaabo bisha 15keeda ayaa loo fadhiyaa halkan waxaanu u nimi maanta madaxda warbixintaas aanu siinay waratashiyadii aanu soo fulinay shaqadeedu halka ay noo marayso kabaarandega iyo fikirka iyagu halka uu marayo markay noqoto xagga bal xulashooyinka kala duwan ee doorasho lagu gali karo dabcan waxaad ogtihiin dalkan inuu duruufo kala duwan soo maray markay xagga doorashooyinka noqoto xiliyada qaar waxa jirtay qofka xildhibaan noqonaya ama doorasho galaya uu hogaamiye kooxeed magacaabi jiray xiliyada qaar oday dhaqameed kaliya magacaabi jiray xilligii u dambeeyay 2016kiina oday dhaqameed iyo 11 qof oo erga ah oo uu soo xulay ayaa xildhibaanka dooranayay tadawurka qori isu dhiibka ee maalinba wax laga soo gudbayay bay dadka Soomaaliyeed soo mareen maantana tala ayaa taalamiiska taladaasina madax bay leedahay arrinta go'aan ka gaadhaysa iyo annagoo farsamo ahaan u yigman hawshan inaanu soo xalino waliba anigu arrimahan hore anigu soo shaqeeyay 16kii baan ka soo shaqeeyay wax badan ayaanu markaa ka fahansanahay arrimaha kala duwan ee loo baahan yahay in la isu miisaamo marka 2016kii iyo 2020 sanada intaasoo sanadood baa u dhaxeeya waxa kale oo u dhaxaysa hayaan la doonayo Soomaalidu inay gasho oo ka guurto wixii hore oo meel kale u guurto
meeshaas oo mabaadi'da guud ee hagaysa ay sheegayaan inay noqoto in dadka Soomaaliyeed ay fursad u helaan inay u codeeyaan qofkii matali lahaa siyaasiyan dadka iyo deegaanaduba inay kordhaan oo kobcaan waa sida dastuurku uu xusayo himilada la hiigsanayna waa taa waxa taa barbar taalla duruufo ku geedaaman dalkeenna iyo xaalada ka jira amni darro jirta iyo amuuro fara badan oo loo baahan yahay in la tixgeliyo marka annaga shaqadaydu waxa weeye inaanu isu miisaanno arrimaha kala duwan keenana tala quman suurtagalnimada hal cod iyo hal qof iyo xaqiiqooyinka sida loo wajihi lahaa ayaa lanoogu baahan yahay inaanu cabir saxa saarno marka spectrum haddii arrintaa la saaro waa 2016 si looga guuraa 1% vote loo hiigsanaa halkee ayaa hayaanka lagu furayaa weeye waa arrin u baahan taxaddar waa arrin u baahan turaale waa arrin u baahan deganaanshiyo in lagu eego xalal iyo xulul siyaasiyana loo raadiyo taa madaxda meesha u fadhida ilaa iyo hadda hordhac ahaan wixii noo qabsoomayna waanu la wadaagay waxaa lagu rajo weyn yahay in dhowaan madaxdu markay arrimahan ka baaraan degto ay isla meel dhigto xanaan doorasho oo suurtagal ah xeeriyana hiigsiga iyo himilada dadka Soomaaliyeed taasi shaqay u baahanaysaa shaqadii xogay badan way noo soo qabsoomeen waxna way dhiman yihiin oo waxay ku imanaysaa isafgarad iyo wada xajood siyaasadeed oo ah ka maantaba halkan loo fadhiyo sidii madaxdu ay ugu ballantay bishii July 22keedii waxaan markaa dadka Soomaaliyeed u sheegan inay ku niyad samaadaan in madaxdoodu ay ka baaraan degayso habka ugu habboon ee doorasho lagu geli karo doorashooyinka sidoodaba xasaasiyadeeday leeyihiin xeeladahooday leeyihiin hawlahooday leeyihiin intaaba iyadoo la dhageysanaya baa waxaa la rabaa dalkan Soomaaliyeed ee dib u soo kabashada ku jira in si quman oo nabdoon oo xasiloon ay doorasho ugu dhacdo talooyinkaasna ku shaqaynaynaa ilaa haddana qorshayaashayada iyo hawshayadu waa mid hordhac ah oo qabyo ah dhawaanna way soo idlaan doontaa warbixinta guud marka inahaasaan ku koobayaa taladii dadka waanu ururin doonaa ka qaybgalkii waanu tixgelinaynaa hawshuna haatan inahaasay maraysaa ayaamaha soo socdana shirkan waxaanu ku rajo weynahay inuu guulo keeno oo ay hawshu saa inagu soo idlaato insha Allah ta'ala طبعا de ilaa doorashada ay qabsoomayso hawl sii soconaysa jiraysa oo la xiriira arrimaha doorashooyinka marka warbixinta hordhaca ah ee shirkan inahaas ay noqonaysaa kulanka maantuna kulamadii hawleed ee lano igmaday mid kamid ah buu ahaa oo aan warbixin ku siinay madaxda heerarka kala duwan ee halkan ku sugan ama santiin dhamaantii